su-aasha u horeysa aan rabno inaanu ku weydiino Nasra waxa weeye doorashada ma isleedahay codee mase codeys ma codeynin welina ma go'aansanin inaan codeeyin kale maxamed su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxa weeye doorashada ma isleedahay codee mase codeys hore u codeeyey waa marka waa codeeyey marka waa diyaar ما شاء الله su-aasha labaad waxa weeye ma isleedahay Soomaalida codeynaysa doorashada muhiim ayay u tahay aad iyo aad muhiim u tahay maadaama wadankan 44,000 oo dad ku nahay codkeena runtii wuxuu leeyahay mug iyo qiimo waa muhiim inaan ka faa'iideysanaa waa waxa kaliya ku shaqatay karna ama awoodin ku soo bandhigi karno inaan codeyno su-aasha labaad waxa weeye waxa jirta musharaxiin badan oo u sharaxay xilka baarlamaanka marka maxaa laga fili karaa iyaga laftigooda waxaa ka filaynaa insha Allah tacaala inay ku guuleystaan joogooyinka ugu sareeyo waxaa jeclaan lahay inay soo galaan meelaha ugu sareeyo xisbiyada baarlamaanka Norway hase yeeshee waxaa dhihi lahay ku fakira inaan Soomaalida kaliya focus ka saarin laakiin guud ahaan bulshadana kale inaad ka qaadatiin codadkooda ugu dambeyntii maxaa u rajeynaysaa Soomaalida waxaan rajeynaa insha Allah tacaala inay si fiican u qayb galaan in ay ku doortaan fikradahooda iyo wixii ay ka jecel yihiin laakiin aysan ku dooran qofkan anaa wato ama qofkan anaa jecel ay ku doortaan qofkan waxaan ka aaminsanahay xisbigaas ayuu iga caawi karaa ama isku fikradanahay ku doortaan insha Allah aad iyo aad baan mahadsantahay adiga mudan aniga weli ma codeyn oo weli gadaal u dhigtay laakiin insha Allah waan rabaa ugu dhawaan mar dhow inaan codeeyo insha Allah laakiin qof walba waxaan kula talin lahaa insha Allah inuu qof walba wuxuu aaminsan yahay inuu codeeyo taas muhiimadda aad iyo doorashada muhiimad gaar ah oo leedahay waa ognahay Soomaalideena wadankan magaca iyo maamuuska aan ku leenahay in aad u liidato marka doorashadan aad iyo aad muhiim u tahay Soomaalida dhan wada codeeyaan waliba u codeeyaan qof walba wuxuu aaminsan yahay ama xisbiga oo aaminsan yahay muhiim waa xisbiyada waa laga wada hadlay xisbi walba wuxuu taagan yahay waa la soo sheegay muhiimaddu waxa hadda inta fadhiistid ka fikirtid xisbiga aragtid oo isleeyasid Soomaalida wax fiican u qaban kartaa wadanka bulsho ahaan musharaxiinta u sharaxan waa labada arkay saan kulligeena rajaynayno marka iyuka waxa laga filayaa insha Allah qofkii oo ku guuleystaa inuu bulshada Soomaaliyeed wadankan ku nool oo wax tar fiican u yeesho taas muhiimadda ugu dambeyn waxa weeye su-aasha ugu dambaysa maxaad u rajeynaysaa guud ahaan Soomaalida ku nool Norway gaar ahaan waxa weeye waqtigan hadda doorashada lagu jiro ee Oslo guud ahaan waxaan u rajeynayaa bulshada Soomaaliyeed gacmahaas wada qabsano wada shaqeeno organisation badan ayaa jiro oo wadankan ka furan oo Soomaali leedahay waxa fiican la isku wada tago horena waa ugu hadalnay page-keena The Twins Mindset in gacmaha la isqabsado la isla wada shaqeeyo sidaan hal meel iskaga soo jeesano aan heer sare u gaarno doorashada ahaan waxaan jeclaanahay insha Allah bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan doorashada sanadkan oo qof walba aabo hooyo qofkii 18 jirka weyn inuu codeeyo insha Allah aad iyo aad baa u mahadsantahay Cabdimaalik daawadayaal waxay la jooga gudoomiyaha SDA ayaa halkan taagan oo isagu laftigiisu kamid ahaa waxa way shirkii maanta halkan ka dhacayay ku soo dhawow gudoomiye waa maasantahay soo model media waa maasantihiin su-aasha u horeysa haddii aan ku weydiiyo waxa weeye gudoomiye doorashada ma isleedahay codee mase codeys aniga weli ma codeyn waa codeyn doonaa laakiinsi sababtan waxa weeye waa codka waa muhiim saameynna waa ku yeelan karnaa khaasatan Soomaalideena tiradeena marka la fiiriyo haddaan codkeena dhiibanno saameyn baa yeelan karnaa laas qofka duu codkiisa dhiiban qofka kale oo codeeyay baa awooddaada siisa aad iyo aad muhiimad gaar ah u leedahay la natiijada ka soo baxdo oo saameynaysa marka waa in xisbiyada annaka oo wanaag noo falay khaasatan marka ay fiisay Soomaalideena waa taag darannahay ma fahamta xagga dhaqaalaha xagga horumarka marka xisbiyada ku dadaalaya in familada taag daran inay soo kabacaan oo ay dadka la sinaadaan waa in codkeena sinaan saani aaminsanahay way su-aasha saddexaad waxa weeye musharaxiin badan ayaa waxay ka sharaxan yihiin xisbiyada kala duwan wadanka marka iyaga laftigooda maxaa laga fili karaa waa wax aad iyo aad u qurxoon run ahaantii waxyaalahan ugu faraxsannahay natiijooyinka soo baxay ka mid tahay xisbiyadana waxaa fiican Soomaalida inaan ka muuqanno saameyntiina la arko marka ha loo codeeyo Soomaalida oo mataqaanaa ku jirta khaasatan SB hadda gabar loo Maryana jirta Maryan Xuseen baa jirta ubax aadan oo aabay ku jirta way badan yihiin Soomaalida insha Allah waxaan rajaynayaa sanadada soo socda inay ka sii bataan run ahaantiina wanaag badan bay noo sameyn karaan haddaan nahay Soomaalida ugu dambeyntii waxa weeye maxaa u rajeynaysaa Soomaalida waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo waa mahadsantahay ku soo dhawow Modern Media gudoomiye aad u mahadsantahay Saciid waa kaaga mahad celinaa soo dhaweyntaada iyo maxaan ku raadhaa hadii su'aalaha aad rabtid inaad iga weydiisid dalkii iyo dalkeena
doorashada ma isleedahay codee ma socodaysa waddankan doorashadiisa ها وعدي waxaan aad ugu faraxsanahay yani aan codkayga dhiibto aan ka faa'iisto fursaddan aad iyo aad su-aasha labaad waxa weeye ma isleedahay soomaalida codayntu muhiimad gaar ah ayay u leedahay dabcan haa because soomaalida dhibaatada haystaa waxay tahay awoodooda kama faa'iideysan haddii codka ay dhiibtaan meesha ay rabaan ama danta ugu jirta ay u codeeyaan waxay faa'iido u tahay ama ay danay yani wax u taraysaa mustaqbalkooda aniga waxaan ku talin lahaa in maadaama aad tahay musharax haddii qofku musharax u yahay waxaa laga rabaa musharaxnimada waxa uu xilka u qaadaa waa dadkiisa iyo dalka uu joogo waxaa laga rabaa qofka markii inuu u fikiro bulshadiisa horumarinteeda iyo difaaca dadkiisa ee uusan noqon qof kursiga ku fadhiista iskala ilooba qolada dowladda ugu dambeyntii maxaad soomaalida u rajaynaysaa waxaan aad u rajeynayaa soomaalida ilaahayna uga baryaya qarnigii 21 ku jirnaa sanadkiisii koowaad ilaahay hadduu yidhaahdo sanadkan 2022 soomaaliya inay cageedana ku istaagto dadka soomaalida ee norway ku nool ay noqdaan hal far hal qof iyo hal aragti nasra ku soo dhow marka u horeysa warbaahinta Somodern Media waa mahadsan tahay su-aasha u horeysa aan rabno inaan ku weydiino nasra waxa weeye doorashada ma isleedahay codee ma se codaysa ma codaynin welina ma go'aansanin inaan codeeyin kale caadiyan Norway markay doorashadu soo dhowdahay waxaad arkaysaa waxyaabo fara badan oo ballanqaad ah waxaad arkaysaa dad maaragtay xisbiyada ka socda oo qolo walba isxayeysiinayso markii 12ka September ka bacdina warkaas meeshaas ku dhamaaday marka ma garan karo intaasaan doorasho arkaynay mir dhal badanna ma arka ani kula waaye musharaxiin badan oo Soomaaliya ayaa waxay ka sharaxan yihiin xisbiyada kala duwan ee waddankan marka iyaga laftigooda maxaa laga fili karaa ma inay soo baxaan mise inaysan soo bixin waxaan u maleynayaa arrimahaas kale waxay ku xiran yihiin qofka meesha uu kaga jiro liiska jaaniska uu leeyahay xisbigiisa uu jaaniska uu ku leeyahay waa suurtagal dad inay soo baxaan Maryan waa u maleynayaa oo kalmar inay soo baxayso sababtoo ah Maryan Xuseen ha sababtoo ah SV ayay waxay kaga jirtaa lambar 2 tahay marka jaaniskeeda uu aad buu u weyn yahay dad kale tana de waa arkayna Maxamed ku soo dhawow Somodern Media waa mahadsantiin waa ka dhawaa maxamed waxaan rabnaa inaan ku weydiino su'aalo yar yar oo kooban su'aasha u horeysa waxa weeye doorashada halka waddankan ka dhacaysa Norway ma codaysay ma se isleedahay codee adigu wali ma codayn laakiin waa codaynaya haddii lahayd waaye su'aasha labaad waxa weeye ma isleedahay Soomaalida codayntu muhiimad gaar ah ayay u leedahay aad iyo aad waxaan isleeyahay Soomaalida muhiimad gaar ah u leedahay sababtoo ah Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka masiirka maamulka cidii maamuli lahayd dadka go'aaminaya ka mid yihiin inay ka qayb qaataana waa muhiim baan leeyahay aad iyo aad bay muhiim u tahay sida ay dadka kale oo nooshkaha muhiim ugu tahay iyaga waxaan isleeyahay muhiimad gaar ah u tahay saasaan isleeyahay inay muhiimad gaar ah u tahay inay codeeyaan oo ay doorashada ka qayb galaan waxaan isleeyahay way soo bixi karaan haddii ay Soomaalidu fahmaan dadka u codeynaya codka ay ka rabaan hadday fahmaan doorashadu muhiimadda ay u leedahay waa ay soo bixi karaan waliba waxay ku soo bixi karaan codad tiro badan oo xisbiyadooda ay mudnaan dheeriya ku yeeshaan bay ku soo bixi karaan waxaan isleeyahay waa laga fili karaa Soomaalidu wax badan baa doorashooyin la qabtay wax badan baa hadal lagu soo jiray inay fahmeen siyaasadda iyo qaabka wax u socdaan iyo waaqaca dadku ay ku nool yihiin waxaan isleeyahay marka hadday soo baxaan inay dadkana matalaad dhaba ay u noqdaan dadka waxa weeye ayna dadka fikirkooda iyo waxa ay qabaan ay dawladda iyo u gudbiyaan cid ay markaas ay matalayaan sidaasna isleeyahay waa laga fili karaa aad iyo aad baan waxaan ugu rajaynayaa inay guuleystaan wax fiicanna ay matalaad dhabana ay keenaan insha Allah dadka dhammaan dadka ay matalaan ay xubnaha maxaa u rajaynaysaa markaa Soomaalida guud ahaan waxa weeye waddankan ku nool ama guud ahaanba Soomaalida oo dhan waxaan u rajaynayaa marka ugu horeysa waxaan leeyahay horta Soomaalida gaar marka laga hadlay inay iyagu dad isku tiirsan oo iscaawiya oo isu sheego iswacyi geliya dad badan baan ka warqabin doorashada iyo waxay tahay deegaanka ay degan yihiin aan ka warqabin waaqaca ka jira iyo waxay ku nool yihiin Soomaalida marka waxaan rajaynayaa horta inay noqdaan iyagu dad isku xiran oo iyagu is dhageysta dadka kalena dhageysta siyaasadda iyo waxa waddanka ka jira iyo sida loo nool yahayna fahma taasina waxay ku imaan kartaa in la iswacyi geliyo dadku inay wax akhriyaan waddanka inay la socdaan inay yacni si dhaba ay waddanka ay ku nool yihiin ay ula qabsadaan ee aysan xataa marka qofku ama joornaal akhriyayo ama warkiisa raadinayo muhiimadda koowaad inuu siiyo waddankan uu ku nool yahay khaasatan degmada uu ku nool yahay
iyo weliba xaafadda uu ku sii nool yahay waxa ka dhacaya intuu meel kale iyo meel fog iyo Soomaaliya iyo meel kale uu warkeeda raadin lahaa kabacdina siduu uga faa'iideysan lahaa hadday wax dhibas jiraan uu isaga ilaalin lahaa inuu ka fakaro sidaas aan u rajeynaya waddanka ay ku nool yihiin Soomaalidu inay si dhaba ugu noolaadaan kolla ka tegmayaan waan ognahay inaysan ka tegayn laakiin waxaan isleeyahay inay si dhaba ugu noolaadaan waddankana ay fahmaan informationka waddanka iyo waxa ka socda maalin walba socdana ay fahmaan journaalkiisa iyo meediyiisana ay la socdaan sidaas ugu horeysa shirdan ku soo dhawow warbaahinta Somodern Media walaalayaal aad iyo aad baan u mahadsantihiin waa soo dhawahay su-aasha u horeysa aan jecelahay shirdano inaan ku weydiiyo waxa weeye doorashada ma is leedahay codee ma se codaysay waa doorashada Norway horta dhaqanka waa in la barto qofku waa inuu codeeyo aad bay muhiim u tahay welise ma codayn maalinta codaynta sugaya aad iyo aad way su-aasha labaad waxa weeye ma is leedahay Soomaalida codayntu doorashada waddankan muhiimad gaar ah ayay u leedahay aad iyo aad bay muhiimad gaar u leedahay inay dad jira yihiin oo bulshada ka mid inay yihiin oo mataqaanaa in cod ku leh oo mug iyo maqaanba ku leh inay yihiin oo marka ay muuqdaan oo codeeyaan baa la xushmaynaya aad iyo aad su-aasha saddexaad waxa weeye sidaan ognahay dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay ka sharaxan yihiin xisbiyada kala duwan ee waddankan marka dadkaas maxaa laga fili karaa ma soo bixi karaan baa is leedahay haddayse soo baxaan maxaa laga filayaa ilaa hadda intaan ka ogahay gabadh ku jirta xisbiga SP oo lambarka labaad ku jirta ayaa noqonaysa gabadhii ugu horeysay oo Norway meel maqaam sare ka gaarta xagga siyaasadda Norway marka iyadaan rajo weyn ka qabnaa anagu haddaan Soomaalida nahay ama Soomaalida inay soo baxdo waayahay su-aasha ugu dambaysa waxa weeye maxaad u rajaynaysaa guud ahaan Soomaalida Soomaalida dhan waxaan rajaynayaa inay codeeyaan maadaama doorasho arrinta ay weydiisay qasab ma aha qofku inuu codaynta kaliya waa inuu ka fakaro meeshuu codaynayo laakiin anigu tala ahaan waxaan leeyahay haddii dadku uu Soomaalida halkan joogo inuu hadba u codeeyo anigu xisbi hebel ha loo codeeyo qof walba ha loo codeeyo ma oran karo oo dhaqanka siyaasadda kama mid aha laakiin waxa fiican in dadku Soomaalidu inay muuqato inay aad u fiican tahay waana garanaysaa waxaan u jeedaa filaya markaas aad iyo aad shirdoon aad iyo aad baa u mahadsantahay ugu horeysa halkan waxaa nala jooga Cabdullaahi ku soo dhawow warbaahinta Somodern Media waa mahadsantahay walaal magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Alason oo degan Kristiansand aad iyo aad baa u mahadsantahay waxaan rabnaa su'aalo kooban inaan ku weydiino warbaahinta Somodern Media su'aasha ugu horeysa waxa weeye ma is leedahay doorashada codee ma se codays ma codaynin laakiin qorsheyga ku jirta inaan codeeyo waaye su'aasha labaad waxa weeye ma is leedahay Soomaalida waddanka Norway ku nool doorashadu muhiimad gaar ah ayay u leedahay waa sax maxaa yeelay waddankan waynu degannahay waynu ka tirsannahay ilmaheena ku nool siyaasadda waddanka lagu dhaqmaayo waa mid annagana khusaysa waa midna taabata nolol maalmeedkeenna carruurteenna marka inaan doorashada ka qayb qaadanno oo aan dimuqraadiyaddii wax ka yeelanno khasab bay nagu tahay waaye su-aasha waxa weeye ugu dambaysa musharaxiin badan ayaa waxay ka sharaxan yihiin xisbiyada waddankan oo kala duwan marka iyaga laftigooda maxaa laga fili karaa ma is leedahay waa soo baxayaan hadday soo baxaanse maxay noqon kartaa horta waxaan rajaynayaa inay soo baxaan oo ay baarlamaanka noo soo fadhiistaan waxaan kaloo ka rajaynayaa waxay tahay in ay ogaadaan in ay u yihiin sawir kuwa kale ayagu ka dambeeya mustaqbalka rabaa inay siyaasadda soo galaan labo in ay waddankan dantiisana ayagoo u hadlaayo uu ka doodaayo haddana ummadda Soomaaliyeed ee Norwejiga ah ee waddankan ku nool dantoodana ay ka hadlaan baan rajaynayaa guud ahaan maxaad ummadda Soomaaliyeed u rajaynaysaa meel walba ay dunida ka joogaan gaar ahaan reer Norway gaar ahaan reer Norway waxaan leeyahay walaalay haddii aad tahay ruux leh aqoonsiga ama sharciga kuu saamaxaya inaad cod ka dhiibato dhiiba codkaaga haddii kale berrito dawladdii soo baxdaahay xisbigii ku guulaystaay dacwaha ka keenin ku soo dhawow marka ugu horeysa warbaahinta Somodern Media aad baan u dhowahay wadna mahadsantii saaxiibayaal su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxa weeye doorashada ma is leedahay codee ma se codays weli ma codayn laakiinse insha Allah inaan codeeya laga yaabaa waaye su-aasha labaad aan ku weydiinayo waxa weeye ma is leedahay Soomaalida ku nool waddankan Norway muhiimad gaar ah ayay u leedahay doorashada
wallahi muhiimad weyn baa u leedahay codka qofku waa wixii uu ku dooran lahaa ciddii uu jeclaan lahaa inay u shaqayso marka qof kasta oo Soomaaliya waxaan kula talin lahaa inuu codkiisa dhibto waayo codkaas ayaa wuxuu ka badbaadinayaa xisbi uusan siyaasadda jeclayn oo meesha yimaada marka hadduu rabo cid gaara oo ama xisbiye gaara oo wax ku tuhmayo inay baahiyihiisa daboolayaan ama waxyaabaha uu jecel yahay qofkaasi ay wax ka qabanayaan waxaan u sheegi lahaa ama aan ka codsan lahaa inay codeeyaan taasina waxay keenaysaa in bulshada ay noqoto bulsho codkoodu shaqeeyo wixii ay iyagu rabaanna ay u shaqayso waxaa jira dad Soomaaliyeed ama waxa weeye musharaxiin Soomaaliyeed oo ka sharaxan xisbiyada kala duwan ee wadankan marka iyaga laftigooda maxaa laga fili karaa hadday soo baxaan wallahi waa positive laga fili karaa qof Soomaali ah oo Soomaali kula hadlaya oo kulay raba inuu wax qabto dadka kale ee iyana cararaya ee doonaya inay xilka qabtaan bay lisma yihiin waxay kaaga dhow yihiin oo kale iyagu Soomaali kula hadlayaan waa kula midab waa kula diin marka dabcan muhiimad gaar ah si leedahay anigu waxaan lahaa qofkii marka idin muhiima u codeeya ama Soomaali ahaado ama cid kale ahaado qofku wuxuu matalayaa xisbi siyaasadii buu akhriyaa xisbi siyaasadii buu la imaanayaa laakiin qofkay ku xiran tahay hadhow isagu suu iskaga xil saari lahaa waxyaabaha uu la yimid miiska xisbigiisu inuu isaguna bulshada si wacan ugu qabto oo uu u soo gudbiyo iyada oo positive ugu dambeyntii maxaad u rajaynaysaa ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa khayr iyo barako